soo noqod wanaagsan engineers. waxaan soo gaarnay qaybtii afraad ee course-keena. qaybtan insha Allah waxaanu kaga hadli doonaa inaad hesho meel aad inspiration ka qaadato, sidoo kale meel aad designada ka eegi karto oo aad ku dhisi karto creativity-gaaga, oo aad ka eegan karto marka aad bilowga tahay. looma baahna just inaad wax kasta garoonka ka bilowdo, waxaad u baahan tahay meel aad inspiration ka qaadato, aad fikrada ka qaadato. fikradahaas ayaa isu keenaysaa. marka community baa u baahan tahay ku support gareeya oo ku caawiya marka ugu horeysa. laakiin si haddaad dhahayd aniga wax kasta bilaabaya, waxaan rabaana inaan moogtahay wax ka keeno, way kugu adkaanaysaa. marka meelaha aad support ka heliso waxaa ka mid ah website-yada tan. Behance baad ka heli kartaa, Freepik ayaad ka heli kartaa fikrado qurux badan, Pinterest. meeshaan si fiican inaad uga adeegato ayaa la rabaa, sababtoo ah fikrado badan ayaa ku jira. fikradahaasaad dib u samayn kartaa. marka ugu horeysa waxaa la rabaa inaad moogtahay aad intaad socod barad ka tahay inaad qof ku dayato, inaad design hore u jira aad dib u samayso. marka waxaad samayn kartaa moogta wax fiican. Shutterstock sidoo kale waxaad ka heli kartaa fikrado badan. Google-ka Google wax badan ayaad ka heli kartaa oo ku anfacaya. YouTube-ka waxaad ka heli kartaa waxaan caadi ahayn. sidoo kale Facebook-ka waxaad ka heli kartaa fikrado. Instagram-kana sidoo kale. marka meelahaas oo dhan waxaad ka helaysaa fikrado qurux badan oo ku caawiya. sidoo kale YouTube-ka waxyaalaha aad ka heli karto waxaa ka mid ah oo dhisaya asaasiyaadka ama khibradda aad u leedahay graphic design-ka. waana waxa aan anugu badanaa tusaale markaan graphic design-ka bilaabayay macallin toos oo barin YouTube-ka ayaan ka bartay. marka YouTube-kan waxyaalaha aan aad ku xiisin jiray waxaa ka mid ah oo kordhiya xirfadeeda graphic design-ka photo manipulation-ka. sawirro ayaa la soo qaadayaa, sawirrada ayaa wax laga sameynayaa wax micno leh. marka haddaan idinla wadaago intuso photo manipulation-nada ama sidaad u raadin kartid, tusaalehaan sidaatan ayaad samayn kartaa. tusaalehaan haddaad YouTube-ka gasho aad ku qorto photo manipulation Photoshop, waxaad arkaysaa kumanaan xabo oo moogtahay wax badan ayaad ka faa'iidaysaa. maxaa la sameynayaa? sawirro ayaa la isu keenaya Google-ka laga keenay, kadib waxaa laga soo saarayaa sawir real ah oo aad u malaynaysid in sawirkan camera lagu qaaday. sida kuwan oo kale soo ma jeedid, light-kii baa la saxayaa, waxaa la saxayaa moogtahay wax kasta oo aad ugu baahan tahay sawirkaaga. marka waxaad ku fahmaysaa halkaa. tusaalehaan halkan oo kale 3 sawir bay ahaayeen marka hore, waa la isu keenay, sawir qurux badan baa laga soo saaray. marka waxaad ku fahmaysaa Photoshop-ka iyo toolskiisa iyo qaabka wax u shaqeeyaan. adiga just kuwan daawo, sawirrada waad ka helaysaa, description-kooda aad ka helaysaa, result-yada aad isticmaalaysid, qaabka u sameynayaan u samey, kadib waxaad arkaysaa adoo moogtahay wax badan sameeyay. laakiinse waa inaad Photoshop-ka aad wax ka taqaanaa, tusaalehaan course ugu yaraan aad ka soo qaadatay, marka wax badan baad ka faa'iidi karaysaa. marka inta ayaan kusoo koobinaa qaybtan. guul baan idin rajeynayaa.